magaalooyin waxa jira Soomaaliya ka tirsan sida Galdogob oo kale ama Balanballe oo markuu qofku GPS ku tago waxay u sheegaysaa in Ethiopia joogo hada sahanada aan qaban oo kale magaalooyinka markii qof uu joogo Soomaaliya uu sahan uu nooga soo sameeynayo GPS-ka ku jira sahankaas markii deetada qaab waxa u soo arnaa computerized ama copy loo yaqaan marka qaabka aan wax ku arurno Ethiopia inay joogaan bisheegaysa laakiin ma joogaan Soomaaliya joogaan marka waxaa jira marka tirkoob la sameeynayo marka GIS ama Geographic Information System in la isticmaalo oo xataa xuduudda Soomaaliya lagu xadeeyo waqtiga tirkoobka waxa laga sameeyaa geeyga Soomaalida marka geeyga Soomaalida waa inuu ku qeexan yahay xagee ugu dambeeyso xuduudku ah marka horta hore dadaal baaxad hay'adda waxay ka wadaa horta inay base map ka sameyso kusoo dhawo maamul wanaag oo ah podcast ay soo saarto Somali Public Agenda magacaygu waa Mahad Wasige waxaan agaasimaha Somali Public Agenda iyo sidoo kale martigeliyaha maamul wanaag podcast hay'adda statistics-ka qaranka waxay sanadihii la soo dhaafay ku howlaneyd dadaalo la xiriira ururinta xogaha rasmiga ah ee dalka oo ay ka mid yihiin tirakoobka tayada iyo tirada xogaha rasmiga ah ee la hayo ama ay hay'adda ururisay iyo sida looga faa'iideysto ayaana dad badan u cadeyn Dr. Abdisalaan Maxamed waa agaasimaha guud ee hay'adda statistics-ka qaranka waxaan kala sheekaysan doonaa arrimaha la xiriira xogaha rasmiga ah iyo dadaalada socdo marka hore Dr. Abdisalaan waxa ku soo dhawaataa Somali Public Agenda iyo maamul wanaag podcast assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh mahad iyo Somali Public Agenda iyo maamul wanaag podcast wada salaamaya aad baan mahadsantihiin oo dhawahay shukran marka hore waxaan rabaa inaan ku bilaawno in Abdul Margud noogu sameeysid hay'adda statistics-ka qaranka xogaha ugu waaweyn oo ay sharciyad u haysatay inay ururiso ama ka shaqeyso sideedaba hay'adda statistics-ka qaranka waxay mas'uul ka tahay inay ururiso soo saarto taxliiliso faafiso xogaha rasmiga ah ee dawladda marka laga hadlayo dalna xogta dalka laga hayo mar walba xogta ka soo baxaysa sida wadamada kale oo maartay caalamka aanu kala wadaagno xogta dawladda ayaa waxa loo ictiraafsan yahay inay tahay xogta kali ah ee sugan oo lagu mataqaanaa jaan goyn karo dalkaasi xaaladda ka jirta waxaan soo saarnaa marka xog runtii tiro badan sahano badanna waa la qabtay iyo tirakoobyo qaybtooda aan dib ka hadli doono xogta marka aan soo saarno waxaa ka mid ah tusaalaha oo kale wax soo saarka guud ee wadanka dhaqaalaha markii laga hadlaayo ama GDP ama gross domestic product waxa loo yaqaan sanad walba bishii lixaad 30keeda ayaan soo saarnaa podcast magaciisa waxaa la yiraahdaa GDP report ama gross domestic product report sanadka hadda u dambeeyay reportku maadaama uu ahaa report 20 page laakiin waan soo koobnay waxaan ka soo saarnay policy brief oo ah 5 page oo koobaysa xogta ku qoran nuxurkii mataqaana reportkaas si joogto ah waxaan soo saarnaa marka sanadihii ugu dambeeyay sanad walba wax soo saarka Soomaaliya meeshu marayo si dadka Soomaaliya xiiseeya ama xataa bulshada kala duwan ee Soomaalida iyo dawladdu ay ogaadaan dhaqaalaheenu wax soo saarkiisa intee buu leeyahay sidoo kale waxaanu si joogto ah u soo saarnaa bil walba heerka badeecada ama wax loo yaqaan sicir bararka ama consumer price index bariga hore waxaa jirta mahadow in sicir bararka xogtiisa kali ah lagu saleen jiray xog laga soo aruurshay magaalada Muqdisho ama gobolka mataqaanaa Banaadir waayahan dambe waxaa runtii 2025 aanu bilownay inaan soo saarno sicir bararka heer qaran oo muddo 2 sano iyo ka badan ayaa waxaa socday tobabar loo sameeyay dawlad goboleedyada shaqaalahooda karaanka ayaa kor loo qaadayay system mataqaanaa xogta lagu share gareeyo iyo nidaamyo noocaas laga shaqeynayay 2025 wax ku guuleysan markii ugu horeysay inaan soo saarno heerka sicir bararka Soomaaliya oo runtii taas bil walba soo baxda lagu ogaan karo dalka sicir bararkiisa intuu marayo iyo gobol walba dawlad goboleed walba sicir bararka levelka
heerka uu marayo halka waxa ka ogaan karnaa marka qiimaha kala duwan ee badeecooyinka iyo qiimaha kala duwan badeecooyinka marka waxa loo yaqaan inflationka waa waxa loo yaqaan cost of living ayaa laga ogaadaa sidee noloshu isku bedelaysaa dhanka kharashka markii laga hadlayo dadka maxaa culays ku ah marka hadda sicir bararka markii la sameynayana waxa weeyaan xogta waxaa laga keenaa badeecooyin kala duwan oo waxaa ka mid ah caafimaadka waxbarashada cuntada kirada guryaha transportationka shidaalka 491 badeeco ama item ayaa xogta sicir bararka Soomaaliya ay ka kooban tahay hababka ugu dambeeyay oo internationalka oo loo yaqaan COICOIP 2018 ayaanu isticmaalay awal waxaa jirtay loo yaqaan COICOIP 1999 oo ka soo wareegnay marka COICOIP maxaa laga soo gaabiyay waxaa loo soo gaabiyay classification of individual consumption according to purpose la soo gaabiyay marka waa halbeegti caalami ah oo loogu talagalay in lagu qiyaaso maxay tahay sicir bararka marka classification uu leeyahay classification walbana waxa la gelinayaa badeecadu meesha hoos timaado marka hadii tahay waxbarasho hadii tahay caafimaad marka standardkii ugu dambeeyo waxa weeye caalamiga teamka marka hay'adana muddo dheer ay tababar u qaateen inay marka waxa ay sheegtay sicir bararka xog la xiriirtay inay soo ururisaan warbixin ka diyaarisaan GDP-ga maxaa kale oo xogaha ay ka shaqeyso hay'adda statistics-ka ka mid ah xogaha aanu ka shaqeyno waa xogo kala duwan tusaale ahaan oo kale waxaa jirta waaxda mataqaanaa macroeconomics ama qaybta dhaqaalaha marka xog badan oo dhaqaalaha ku saabsan ayaa laga helayaa hadda markaan ka hadlayno GDP-da iyo sicir bararka iyo inflation waxaas soo saarka timaada waxaa kaloo jirta waaxda population and social statistics oo waaxda arrimaha bulshada iyo tirakoobka xogta arrimaha bulshada ayaa laga helayaa soo aan oo kale waxbarashada caafimaadka maxay too xogaha noocaas oo kala qayb dhan baa maartay noo qaabilsan marka laga hadlayo sustainable development goals ama yoolka xalalka waara oo 2030 agenda ku jirta waxay leedahay sidii caadiga 232 tusayaal ama indicators hay'adda istaaska qaranka waxaan hadda haynaa 92 indicator ama tusayaal oo micnaheedu waxa weeyaan sahanada soo socda hadda 2026 aan qaban doono markii noo qabsoomaan waxaan ku dhawaanaynaa in xog walba oo sustainable development goals ku saabsan aanu heli karno iyo heerkay Soomaaliya ka joogto sahanadii kala dambeeyay waxaan soo saarnay si official ah xogta heerka saboolnimada Soomaaliya mid mataqaana dalka oo dhan iyo hadii laga hadlayo reer guraaga ama mataqaana IDBs-ka iyo levelka mataqaana faqrinimada meesha ay jirto xogaan ka soo saarnay xog xataa waxa ka soo saarnay waxa loo yaqaan multidimensional poverty index oo ah saboolnimada dhinacyada badan qofku waxa laga yaabaa in la dhaho waa sabool oo international definition baa loo sameeyay qofkii $2 iyo mataqaana in yar $2 ka yar maalintii ay soo gasho inuu sabool yahay laakiin waxa laga yaabaa qof financially aan sabool ahayn inuu dhinacyo kale oo sabool u keenay maxaa kamid ahaan kara waxbarashada oo kale reerku hadduu ilmo dhalay oo hal wiil ah ama gabar kamid ah oo san waxbarashada aadin saboolnimada soo galiyaan waxaa sabool laga noqon karaa dhanka access to mataqaana health ama caafimaadka waxaa sabool laga noqon karaa living standardka guriga ku nooshahay mataqaana sanitationkiisa ama nadaafadiisa waxaa sabool laga noqon karaa waxay too nutritionka oo kale nafaqada oo kale marka iyada lafteeda waxaan soo saarnay report loo yaqaano dalkaas aan ka hadlayo multidimensional poverty index oo isna xog badan laga helayo ilaa heer qaran heer gobol sida Soomaalidu mataqaana ay saboolnimada ay u taabatay marka waxaan kaloo xog ka soo saarnaa oo sahanadeen kamid ah xogta caafimaadka oo sahankii caafimaadka ayaan 2020 hay'ad soo saartay oo ka hadlay waxyaalo badan oo caafimaadka la xiriira waxaan kaloo mataqaanaa jirta xog ku saabsan oo iyadana ku saabsan labor force-ga ama suuqa shaqada iyo shaqo la'aanta iyo sida wadanku yahay heer gobol waxaan kaloo soo wadnaa marka sahano noocyo badan leh maalintii waxaan soo bandhignay sahan loo yaqaano multiple indicator cluster survey ama
hay'adda sahanka tusayaasha badan waxaa ka soo bixi doonta mahdow 168 indicator ama tusayaal oo cover gareynaya ama xog laga heli doono ku saabsan waxyaalaha loo yaqaan caafimaadka horta wuxuu ku saabsan yahay arrimaha dumarka qoyska caruurta iyo ragaba laakiin xog waxa ka soo bixi doonta la xiriirta caafimaadka waxbarashada fayadhowrka maxaayato nafaqada marka caafimaadka marka laga hadlayo hooyooyinka iyo dhallaanka iyo cudurrada ku dhaca iyo waa dareemi kartaa 168 tusayaal waxay noqonaysaa xog aad u tiro badan marka hay-addu waa anagii qabanay titrakoobka ganacsiyada Soomaaliya iyada lafteeda xog badan ka soo baxday sidaas la mid ah sahanka miisaaniyadda qoyska aan qabanay kii 2020kii waxaan soo wadnaa mid kale oo aan qaban doono hadii Ilaahay yiraahdo kii 2026 hadii Ilaahay nafta nagu gaarsiiyo micnaheedu marka waxa weeyaan in ka badan 200 oo tusayaal oo official data ah oo loo isticmaali karo in go'aan dawladdu ay ku gaarto marka laga hadlayo qorshaha isbeddelka qaranka sidaba qorshe waa qorshe waa plan qorshuhu warqad buu ku qoran yahay laakiin qorshahaasi maxaa laga fuliyay maxaana ka fulin waxa loo baahan yahay waxa loo yaqaan indicators baa loo baahan yahay adduunkuna moogta hadda waxa weeyaan dawladdu waxa lagu xisaabtamaa the bigger picture oo kale maxaa qabsoomay maxaa isbedelay caafimaadka maxaa isbedelay infrastructure-ka maxaa isbedelay dakhliga maxaa isbedelay heerka nolosha mataqaana ama karaanka ummadda markaas mataqaana wadanka ku nool marka xogtaas oo caafimaad iyo waxbarasho iyo dhaqaale iyo xataa food security marka laga hadlayo iyo xataa surveyada waxaan ka soo saarnaa xog ka hadlaysa shockiska ama dhibaatooyinka ay keentay ama dagaal ha keeno ama dhac iyo dhibaato ha keento ama ha keento cimilada iyo fatahaadaha ha keenaan xogta noocaas kale xataa sahanadeen waa ku haynaa marka waxa weeyaan haddii loo baahdo xog dawladeed oo fiirinaysa dhanka saboolnimada oo mid fiirinaysa dhanka caafimaadka iyo dhanka waxbarashada iyo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka sugnaanta cuntada waxaan xogo noocaas oo tiro badan ayaa laga helayaa hay-adda iyadoo qaab reportan oo soo saarnaa iyadoo qaab raw data ah oo data la soo aruuriyo oo dad badan oo cilmi baarayaal ay ka sameyn karaan daraasooyinna idana waa haynaa marka xogihii rasmiga ahaa ee dalka ayaad shaqo badan ka qabateen inaad soo ururisaan san maaragtay sharaxaada hadda ka muuqato waxaa jiro xogo rasmi ah oo dalka oo la xiriira biyaha xogaha dhulalka land information waxaa muddo maamulaya barnaamij unit la yiraahdo SWALIM Somali Water and Land Information Management oo head FAO ay maaragtay hoostaga dabcan waa xog official ah xog rasmi ah ayaa maaragtay lagu ururin jiray iyo heerka nafaqada iyo sugnaanta cuntada Food Security Nutrition Analysis Unit FSNAU ayadana xogaha la xiriirta abaaraha iyo cuntada yarideeda ay muddo soo saaraysay labadana waxaa maamulayay hay-adda FAO waxaa socday dadaallo dhowr sano ka hor la xiriira in dowladda federaalka ay maamulka hay-adahaas ay la soo wareegto maadaama ay xogo rasmi ah oo ay ka shaqeeyaan marka dadaalkaas intuu marayaa mise ku guulaysatay dowladda inay si dhammaystiran ula soo wareegto maamulka platformyadaas mahad waa mahadsantahay runtii waa su-aal muhiim ah sideedaba xogta sugan ama rasmiga ah ama official statistics dowladda ayaa ka mas-uula hay-adda statistics qaranka ayaa nagu mas-uula burburkii kadib hay-addan FAO SWALIM ayaa iyagoo caawimaad ka helaya deeq-bixiyaasha caalamiga ayay waxay isku xilsaareen inay Soomaaliya xogta noocaas ah oo ku saabsan ku ururiyaan waana xog runtii laga soo arusho ummadda Soomaaliyeed la rabay inay ahaato xog sugan oo rasmi ah dadaallo ayaa waxaa soo bilowday 2021dii hay-adda statistics qaranka iyo FAO ayaa heshiis waxay ku galeen transition plan ah in xogta dowladda lagu soo wareejiyo
markaas marka waxaa la qiimeynayay ogtahay xogta ay ka shaqeeyaan ama nutritionka la xiriirta ama cimilada la xiriirta ama dhulalka la xiriirta xogaha ay FAO hayo sugnaanta cuntada iyo food security iyo waa xog ay isticmaalayaan oo la rabo inay isticmaalaan hay'ado kala duwan oo dawladeed marka wasaaradda mataqaanaa beeraha hay'adda musiibada iyo maareynta wasaaradda mataqaanaa caafimaadka oo nutrition ka soo galaysa wasaaradda xanaanada xoolaha xogahaas waa hay'adihii dawladeed xogta isticmaali lahaa marka maadaama ay tahay xogtaasi xog noocaas oo hay'ado kala duwan isticmaalayaan marka waxaa markaa loo baahday in dawladooda socota oo laakiin hay'adda statistics qaranka ay leedahay doorka hoggaanka in xogta lagu wareejiyo heshiis baa la galay waxaa la sameeyey mataqaanaa qiimeyn lagu qiimeynayo awoodda karaanka hay'adahaas ay leeyihiin xogta lagu wareejiyo haddaa ka wareysid hay'adda statistics qaranka runtii karaankeeda awoodeed korba u kacay dad dhalinyaro ah oo aqoon fiican leh oo statisticska iyo maqaalaha barta ayaa ka shaqeeya qiime markii lagu sameeyey runtii aad baa maaragtay skoorkooda lagu qancay inay shaqada si madax baan u qaban karnaa taana waxaa dee caddaynaya sahanada isdaba joogga ah oo ay sameynayaan hay'addu sameynayso oo la oran karo waa reliable lagu kalsoonaan karo xog sugan soo saarta si joogto ahna ay mataqaanaa bahaweynta bulshada caalamka iyo Soomaalida iyo dadka dawladda u isticmaasho marka qiimeyn baa la sameeyey karaanka hay'adda inay hawshaas runtii ay awoodeeda leh inay qabato hasa yeeshee isbeddelaa marba iska imaanayo oo mar doorashada la galo mar mataqaanaa si waxba xaaladii sidii la rabay ma dhicin xogtiina lagu soo wareejin waana dareemi kartaayo xogta noocaasa markii la soo wareejinayo hay'adahaas UNTA oo Soomaaliya jooga waxay ka shaqeeyaan inay shaqo qabtaan shaqo weyn ayay u tahay ay ka shaqeeyaan shaqaale badan ugu shaqeeyo marka xogta la wareejinayo laftigooda culays ay ku tahay waana runtii arrin u baahan go'aan dawladeed waaye balse aniga inta hadda aan xafiiska imid isla markiiba waxa weeyaan wada hadalaan bilownay wadahadaladaas sida caadiga waxa weeyaan hay'adda statistics qaranka ayaa waxay leedahay hoggaanka xogtaas in maadaama ay tahay xog la aruursho oo ay tahay xog primary data in hay'adda ay lahaato hoggaanka hay'adaha kale oo dawladdan aan hadda ku sheegan ay nagala shaqeeyaan arrimahaas inta hadda aan joogay shirar badan baa ka galnay marka waxay muuqata in FAO ama hay'adan mataqaanaa United Nations u qaabilsan sugnaanta cuntada iyo baalkii inay diyaar yihiin inay nagala shaqeeyaan marka hadda xilli waxaan joognaa aan ka wada shaqeyn lahayn work plan ama qorshe aan shaqada kula soo wareegi lahayn laftigeeda ma sahlana carqaladooyin badan baa jira carqaladaha jira marka qaarkood waxay ka imaanayaan dawladda ka imaan karaan dhexdeeda waxaa laga yaabaa in hay'ad kale oo dawladeed ay si kale u aragto inay iyada xogta ay liid garayso marka qaarkood waxaa jiri kara doorka dawlad goboleedyada yeelan karaan oo kale in marka qaarkood la qeexo laakiin sida aniga hadda iga muuqatay wadaxaajoodka iyo shaqada noo socota waxaanu ku kalsoonahay muddo insha Allah tacaala hadda aan oran karo xilligaas ku egtaa laakiin muddo macquul ah in hay'addu ay xogta dib ula soo wareegto xogtaasna ay noqoto xog dawladeed waxaan kaloo FAO ka wada hadalnay iyagoo laftooda runtii dareensan muhiimadda hay'addu ay leedahay in xogihii ay aruurin jireen ilaa 95 baa qaybtooda soo bilaabeen in xogahaasi aanu dib tixraac u sameeyno tiimka hay'adda statistics qaranka iyo cidii kaloo xataa iyaga ka mid ah ama cidii kaloo aan mataqaanaa nagala shaqeyn karta inaan xogahaasi u sameeyno validation oo dib looga dhigo in hay'adda ay ownershipkeeda qaadato oo aan official statistics ka dhigno mararka qaarkood kale hadda xogahaas ay soo saaraan hay'adaha UNTA hadda cilmi baaris u sameynayso waxaa la isweydiiyaa mararka qaarkood xogtan xog noocaya waaye ma hay'ad dawladeed baa soo aruurtay mase UNTA soo aruurtay waxay credibility marka xogtu ay high tahay ama lagu kalsoonida ay kor u jirtaa markii la oran karo waa xog dawladeed marka macnaha processkaas waa waqti iskaga baahan doonaa laakiin xog muhiim oo maaragtay ayaa maaragtay FAO hadda ay maamulaysaa midda xogaha aad ururisaan oo hadda dhinacyo kala duwan taabanayo sidee u gaarsiisaan hay'adaha dawladda ay khasayso iyo shacabka iyo xarumaha cilmi baarista iyo approachka xogahan aad ku gaarsiisaan muxuu yahay
maada horta qodobkii kale horta haddaan kusii darsado waxaa iyadana jirta marka laga hadlaayo sugnaanta cuntada qodobkii laga hadlaayo hay-adda istaatistiga qaranka hadda waxay gacanta ku haysaa oo iyadu ay liirgaraysaa ribooryo sanadkii 2 mar soo baxa loo yaqaano joint monitoring report waxaa bahwadaag ku ah FAO hay-adda istaatistiga qaranka iyo World Bank waxaana processka nagala shaqeeya oo nagula jira committee-ga wasaaradda qorsheynta iyo xafiiska wasaaraha anaga markaa wixii data validation ku sameeyna reportkaas markaas hadda joint monitoring report-iga full security-ga xooga saara official data ahaan baan hadda u qaadanaa maadaama processka iyo validationka iyo analysiska ay kulli ay hay'addu qayb ka tahay waana dadaalo muddo socday oo laga waday in loo sii toogabaro dowladda karaanka kor loogu qaado in aanu xogta aan sababta la wareegno marka laga hadlayo xogta su'aasha hadaan u imaado xogta dad ku gaarsiino sideedaba waxa weeyaan anagu kayad ahaan xogta dowladda muhiim baan u aragnaa waana waxaan aaminsanahay in wadanka lagu hago inay tahay xog sugan oo dowladdu ay leedahay xog walba marka aan soo saarno haddii ahaan lahayd report iyo haddii ahaan lahayd sahankaasoo muddo la aruurinayay oo mateli kara xogta ummadda Soomaaliyeed laga soo aruuriyay waxaan ka sameynaa reportyaan ka sameynaa waxaan sameynaa workshops aanu maaragtay kusoo bandhigno waxaan u yeernaa hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaanu ku casuumnaa bahweynta kala duwan ee mataqaanaa bulshada caalamka iyo xataa mataqaanaa civil society-ga ururada kala duwan oo mataqaanaa dhalinyarta haweenka idaacadaha ayaanu maaragtay ku shaacinaa website-keena iyo website kala duwan baan ku muujinaa marka waa qaabkaas xog walbo aanu soo saarana website-ka la heli karaa laakiin mar walba waxaan runtii waa dadaal joogto ah in kor loo qaado wacyigelinta dhanka xogta weliba si khaasa kor loo qaado in xogta aanu soo saarayno ay luqadda Soomaaligaana ay ku baxdo mararka qaarkood waxaa laga ribooryo inaan luqad Ingiriis ku soo saarno kuwa qaybtoodna waan turjumnaa hadda CBI-da oo kale ka hadlaya inflationka iyo waxsoosaarka Soomaaliya oo turjumnaa kuwa kale oo riboorada waaweynna runtii shaqaan ka wadnaa arrinta oo isticmaalka xogta waxaa loo yaqaanaa data literacy fahamka iyo la falgalka xogaha iyo in go'aanada lagu saleeyo xog waxaa la dhahaa inta badan waa ku yar tahay hay'adaha dowladda iyo dadka dowladda u shaqeeyo waxaa laga yaabaa inaan khalad ku lahayn oo qof aan data literacy-giisa wanaagsanayn in xafiisyo siyaabo kala duwan loogu magacaabo marka yacni heerka isticmaalka marka laga soo tago wacyiga abuurtaan workshobyada qabataan oo ku faafisaan fahamka iyo awoodda iyo aqoonta howladeennada hay-adaha kala duwan ee dowladda ee xogtaan qusayso oo inay akhriyaan ay kula falgalaan xogtii go'aanana ku salaysaan dhaqankaas Soomaaliya aad u geeri hal hadda dhaqan anaga xitaa aan ku dib qabno maadaama aan daraasado soo saarnay cilmi baarisyo waxaan ku dhibtoonaa in dadkii hay-adihii ay khusaysay inay akhristaan xogihii ay maaragtay inform garayso go'aanadooda marka sidee caqabadaas u wajahdaan xog oo ka wada shaqeynaa oo lagu soo feero jabay oo dadaal badan soo galay in haddana aan la isticmaalaynin dee waa cost waxaan leeyahay dhaqanka in dadku isticmaalaan xogta dowladda runtii wuu iska yaryahay ama wacyiga ummadda Soomaalida inay xogta isticmaalaan ay u isticmaalaan inay qorshe ay ku fuliyaan way iska yara ka kooban tahay laakiin marka laga hadlayo dowladda waxaa jirta runtii qorshaha isbeddelka qaranka oo 2025 la soo bandhigay qorshahaas marka wuxuu ku salaysan yahay tusayaal marka
muhiimad weyn ayaa hadda waxaa loo arkaa dowladdan u aragtaa in si qorshaha isbeddelka qaranka loogu xisaabtamo wixii ka qabsoomay in horta hore xog sugan la helo oo lagu qiimeeyo ahdaafta ku qoran qorshahaas maxaa ka fulay maxaana ka fulin sidaas si lamida marka waxaa weeyaan dee markii hadda laga hadlaayo dowladda soomaaliya markay caalamka ay la kulmayso xog baa loo baahan yahay tusaale waxaan kuu siin karaa soomaaliya waxay rabtaa inay ku biirto WTO ama World Trade Organization marka waxaa processka baa bilowday processkaasi markuu bilaabanayay su-aalo ka badan 200 su-aalood ayaa dowladda Soomaaliya soo weydiiyey in badan oo kamid ah marka waa xog baa la rabaa xog laga rabo ganacsiga xog laga rabo dhaqaalaha xog laga rabo mataqaanaa dhan walba kala duwan oo la xiriira ummadda Soomaaliyeed xaaladda ay ku sugan tahay marka wasiirada iyo agaasimayaasha guud iyo dowladda iyo madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu runtii way fahansan yihiin muhiimadda ay leedahay in xog waddanka laga helo marka hadda laga hadlayo oo kale waddankan maxaan u dhoofinaa exportiska maxaan soo dhoofsanaa xogtaas oo dhan waxaa laga heli karaa wax soo saarka waddanka markaan sameynayno GDP ayaa laga helaa inaan ogaan karno mataqaanaa xogta ku saabsan mataqaanaa xeerarka kala duwan ee caafimaadka iyo waxbarashada inta hadda ka hadlayay waxaa wacyigaas marka hadda waa wacyi hadda kobcaya waxaana keenaya qorshaha isbeddelka qaranka iyo dabcan Soomaaliya yeelatay waxaan loo yaqaano higsi 2060 marka si loo qiimeeyo in ahdaaftii iyo qorshayaashii la fuliyo waa in xog la ictimaado ama xog lagu saleeyo absolutely marka hadda laga hadlayo oo kale Soomaaliya barnaamijkan hadda maartay deyn cafinta deynta waxa lagu gaaray waxay ahayd xog laga helay waddanka haddaan xog lahaynin oo dowladda Soomaaliya aysan dib habeen iyo hufnaan ku sameynin systemka dowladnimo ma deynta lama gaarayn shuruudaha ku xirnaa in dakhliga dalku inta noqdo in waxyaalo badan oo kharashaadka waxyaalo badan oo dowladda Soomaaliya mataqaanaa talooyin iyo tusaalooyin la siiyay marka haweenta beesha caalamka oo runtii Soomaaliyana garab taagneed haddana garab taagan xogaha ay laftigooda ay rabaan Soomaaliya xataa markay qorshooyin sameynayaan ama ay ku caawinayaan wax ku qiimeeyaan waxaa kamid ah xogaha kala duwan oo hadda dowladdu ay hayso qaybtooda marka iyaga aruuriya waa wax hadda aragno inaan la soo wareegno qaybtoodna anaga aruurina marka waxaan oran lahaa World Bank oo kale ama African Development Bank bangiyadaas waaweyn runtii gacan weyn bay ka leeyihiin in ay Soomaaliya xog ay iyadoo leedahay soo baxdo waana sababta mataqaanaa hay'adda istaastiska qaranka ay taageero fiican oo wada shaqeyn ula leedahay hay'adaha waaweyn oo caalamiga ah arinta waxaan rabaa inaan su'aal ka weydiiyo tirakoobka sahan ayaa 2014 la sameeyay inkastoo horaantii 2015 la faafiyay buuq badanna Soomaaliya ka dhaliyay xilligaas waqtigaas wixii ka dambeeyayna Soomaaliya waxaa la sheegayay in la sameyn doono tirakoob oo maaragtay hadda populationka waa qiyaas imise qofka Soomaaliya ayaa dalka maaragtay ku nool waa on la qiyaasaa dadaalada dabcan tirakoobka waxyaabaha uu hadda muhiimka u ahaan lahaa waxaa ka mid ah doorashooyinka oo hadda diiwaangelin waxbaa socdo dal aanan dadkiisa la aqoonin oo doorasho ay ka dhacayso waxay leedahay cilado badan marka dadaalkii la xiriiray statistikada dadka populationka Soomaaliya intee maraysaa goormaas laga yaabaa in Soomaaliya ay yeelato tirakoob horta waxaan rabaa in su'aashaas aan ugu jawaabo tirakoob rasmi ah oo la isticmaalo la qabto Soomaaliya waxa u dambeysay natiijadiisana la hayo 1975 muddo 50 sano ka hor waqtigaas fog weeye wadamada tirakoobka muddo dheer aan qaban baanu ka midnaa waxaa jiray 1985 in tirakoob la qabtay kale
86 in la rabo in la shaaciyo ma la shaacin sabab la xiriira sugnaanta xogta iyo arrimo noocaas oo kale ah marka micnaheedu waxa weeyaan tirkoob dama lama qaban 1975 kadib sidaa sheegtay 2014 2013 waxaa la qabtay maartay Soomaaliya waxa loo yaqaanaa population estimation survey ama sahanka qiyaasta macnaha tirkoobka bulshada Soomaaliyeed marka waxaa qabtay UNFPA oo u qaabilsan UN-ta arrimaha tirkoobka iyo populationka waxayna la qabteen dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada marka tirkoobka wuxuu ahaa tirkoob ma ahayn wuxuu ahaa qiyaas heer gobol sahan wuxuu ahaa lagu qiyaas qaadanay oo heer gobol ah marka kolba waa la dadaalay tiro un qiyaas ah baa soo baxday wixii ka dambeeyay lama qaban sahan kaloo maaragtay lama qaban qiyaastaas unbaa Soomaalida bay ku lagu mataqaanaa ilaa hadda idaa la isticmaalaa hay-adda tirkoobka qaranka marka dadaalo ayay muddo ku jirtay kuna jirtaa ilaa hadda tirkoob la qabto sidoo tirkoobka wadamadu inta badan 10 sano mar ay qabtaan 10 sano mar loo qabto 3 sano 10 kadib ugu dambeeysa waxaa lagu jiraa qorsheynta tirkoobku waa shaqo ballaaran u baahan yahay sida Soomaaliya hadda 50 sano ka hor aan tirkoob ugu dambeysay macnaha waxaa loo baahan yahay in logistically in diyaar loo ahaado in tirkoob la qabto marka shaqooyin badan hadda qabsoomay waxaa kamid ah tirkoobka si loo sameeyo marka hore consultations iyo wadatashi ayaa waxa la sameeyay dawlad goboleedyada waxaa loo yaqaano project mataqaana documentiga ama in tirkoob la sameeyo documenti si clear u sheegay qaabka tirkoobka loo sameeyo iyo meelaha laga sameeyo iyo procedure-ka iyadana waa documentiga waa la sameeyay Soomaaliya saa ka wareysid khariidad ama wax loo yaqaano base map wax ka khaldan yahay magaalooyin waxa jira Soomaaliya ka tirsan sida Galdogob oo kale ama Balanballe oo markuu qofku GPS ku tago waxay u sheegaysaa in Ethiopia joogo hadda sahanada aan qabanno kale magaalooyinka markii qof uu joogo Soomaaliya uu sahan uu nooga soo sameeynayo GPS-ka ku jira sahankaas markii deetada qaab waxa u soo arnaa computerized ama copy loo yaqaan marka qaabka aan wax ku arurno Ethiopia inay joogaan bay sheegaysaa laakiin ma joogaan Soomaaliya joogaan marka waxaa jira marka tirkoob la sameynayo marka GIS ama Geographic Information System in la isticmaalo oo xataa xuduudda Soomaaliya lagu xadeeyo waqtiga tirkoobka waxa laga sameynayaa geeyga Soomaalida marka geeyga Soomaalida waa inuu ku qeexan yahay xagee ugu dambeeyso xuduudku ah marka horta hore dadaal baaxad hay'adda waxay ka wadaa horta inay base map ka sameyso si markii Soomaaliya geographical la fiirinayo ay noqoto Soomaaliya u noqoto sidoo kale waxaa jira toogabaro oo caalami ah oo shirarkan arrimaha population ku saabsan caalamka oo dhan ay meel kala duwan ka dhacaan regionka hadda aan ka tirsannahay aan ku biirnay East African Community iyo IGAD sahanada dalalku way wada sameeyaan 10 sano mar ama 5 sano mar marka shirarka caalamiga ah hay'adda teamkeeda khubarada way ka qayb galaan tiriina badan ay runtii soo qaateen hay'ado badan oo kala duwan oo runtii magacooda aan mataqaanaa haddaan kuu sheego tiro badan oo dhowr ah ayaa nagala shaqeeya in ay tayada iyo karaanka shaqaalaha hay'adda isaaska qaranka markii si tirkoob loo sameeyay maaragtay ay kor u qaadaan marka dabcan tirkoobku inuu muhiim yahay inuu mataqaanaa qorshaha qaranka inuu muhiim u yahay si hadda ay sheegayso mataqaanaa uma anfood inuu muhiim u yahay in la ogaado gobol walba Soomaali ah si dadka loo caawiyo sidaba in la hayo tirkoob macnaha waxa weeyaan meesha genderka xitaa in la ogaado Soomaaliya in dhalinyarada misoo dadka dhexe si guud xataa markii la fiirsho meesha loo badan yahay oo saboolku ka jiro meesha IDPs-ka iyo dadka mataqaanaa reer guraaga xataa iyo dadka baadiyaha joogi si u kala degan yihiin iyo xog badan baa horta hore oo qorshaha dawladda maaragtay ka saacidii lahaa dadka in loo gurmado gargaar loo sameeyo ayaa horta meesha ka soo bixi lahayd taa marka anaga dhankeena dadaal baa muddo socday dadaalna wuu socdaa hadda kuma oran karo tirkoob xilligaas la qabanaya laakiin inta badan roonka East African Community-ga waa 10 sano mara qiyaas ahaan 2029 ayaa tirkoobyada wadamada aan ku jirno ay qaban doonaan marka ka hor intaan 2029 la gaarin marka in la isku diyaargarowgaas runtii hadda lagu jiraa waxaa mar walbana muhiim ah maadaama tirkoobku uu noqon ilaa heer degmo
heer gobol guri walba oo la tagaayo waxay u baahan tahay runtii wada shaqayn iyo wada jir waxay u baahan tahay sugnaan amniga dowlad goboleedada iyo madaxda mataqaanaa Soomaalida iyo xasilooni siyaasadeed u baahan tahay oo in siyaasad ahaan aanan marka waa meel loo socdo dadaalo badan oo laga sameeyay waan rajeynayaa marka anigu muddo kooban markaan fiirshay dadaalka hadda socda iyo dadka Soomaalida ayo runtii dowladnimada soo kobcaysa karaankeeda in tirkoob la qaban doono waxa kale oo idin muhiim ah kharash badan baa tirkoob ku baxaya in kharashkeedana loo dadaalo oo loo helo in loo helo arinta waxa sidoo kale tirkoob ku sameeysan ganacsiyada Soomaaliya noo faahfaahi ujeedada maxay ahayd oo tirkoobkaas u sameeysan sidaadaba tirkoobka ganacsiyada Soomaaliya waxaa la qabtay sanadkii hadda la soo dhaafay 2024 waxaan soo bandhignay December 2024 waxaan u arkaa tirkoob ganacsi oo muhiim ah oo xog badan ku jirto inaan soo bandhignay report waa ka sameynay daraasooyin kalena waa ka soo wadnaa waxaa la tirakoobay 16 magaalo oo waaweyn oo goboladii Soomaaliya magaalo madax u ahaa 174,149 ganacsi ayaa la soo tirakoobay macnaha markii tirkoob laga hadlayo magaalada Muqdisho ganacsi ka furan lagama tagin macnaha marka tiradii ugu celi 174,149 ganacsi ayaa okay macnaheedu yahay magaalada Muqdisho hadii tirkoob ganacsi laga sameeyay albaab furan lagama tagin kabar lagama tagin kolba shuruud baa ku xiran kabarka inuu sanad uu furnaa oo kale marka waxa soo baxday marka in runtii xog badan aan halka ka helnay waxaan ku ogaanay marka in ganacsiyada Soomaaliya 28% ay ka furan yihiin magaalada Muqdisho 18% magaalada Hargeysa 11% magaalada Boosaaso marka saddexdaas magaalo Muqdisho Hargeysa Boosaaso ayaa waxay noqotay saddex magaalo ugu ganacsiyada badan Soomaaliya ganacsiyada mataqaana ummadda Soomaalidu inta ugu badan ay ka shaqeyso waa waxyaalaha loo yaqaano jumlo iyo tafaariiq waana tan cadeynaysa inaan nahay dad wax soo dhoofsanay waxaan soo dhoofsanay inta badan wadanku ma leh warshado sar badan ma leh ganacsiyada kale loo badan yahay waxa weeyaan accommodation iyo food services iyo hoteelada iyo maqaayadaha waxaas 10% ayay noqotay manufacturing oo ah mataqaana warshadeynta iyo waxaas runtii 3% bay noqotay oo macnaheedu noo sheegaya dal halkaas maartay kaliita inaanu nahay marka ganacsigaas yadaas marka Soomaalida waxa soo baxaya marka ganacsiyada maxay too waxa loo yaqaan kabarada ama ganacsiyada yar yar oo loo yaqaan micro establishments oo boqolkii 48 kamid ahaa 134,000 wax ku dhow ahaa waa ganacsiyo yar yar waaye ganacsiyadaas yar yar 70% dumar baa iskale ganacsiyada kale oo mataqaana formalka ah formal waa wixii canshuur baxsho oo waaweyn yarna way ahaan karaan 27% ay noqdeen informalkan wuxuu noqday boqolkiiba maxay too 25 marka micnuhu marka waxa weeyaan xataa halka waxa laga fahmi karaa informal sectorka oo ganacsiyada way badan yihiin kabaradii iyo micro establishments way badan yihiin waxa ku hoos qarsoon marka ay canshuur ma baxshaan ma diiwaan gashna dawladdu macnaha waxa ka baxsho marka hadii informal yihiin xataa inay deyn qaataan oo kale inay mataqaana waa ku adag tahay marka hadii dib runtii reportka aan ka qorno lagu laabto waxaa laga helayaa xog muhiim ah oo lagu horumarin karo ganacsiyada Soomaaliya marka dawladda hay'adaheeda kala duwan sida wasaaradda ganacsiga oo kale sidee xogahaas oo kale u isticmaalaysa ay ganacsatada Soomaalida ay wax uga qabato wasaaradda maaliyadda oo kale si loo formalize gareeyo ganacsiyada qaar si ay canshuur u bixin karaan wasaaradda qorsheynta in qorshayaashii qaranka ee maaragta lagu daro karo isticmaalka hay'adaha dawladda sidee u isticmaalayaan xogta noocaas oo kale muhiimka ah si caadiyan anaga maadaama aan statistics ka shaqeyno
tirakoobka aan sameynay iyo xogtiisa iyo dadka aan wareysanay cidna lama wadaagno ujeed canshuur iyo waxa ma ahayn ujeed wuxuu ahaa la ogaado xaaladda ganacsiga lagu ogaanayay marka waxaan ka sameynay wax loo yaqaano Somali Business Register registriga businesska ka sameynaynaa oo macnaha ganacsi walba iyo adresskiisa iyo magaciisa iyo xogtiisa in la heli karo adduunkana way ka jirtaa su'aal ay wadi soo jirto waxay maxaa xogta loogu baahan yahay xogta waxa loogu baahan yahay in go'aan dawladeed lagu gaaro oo ganacsiga lagu hormariyo laakiin waxa kale oo jirta GDP-da ama wax soo saarka wadanka aan hadda ka hadlayo gross domestic product dhowr hab baa loo qiyaasaa hab ka mid ah waxa weeyaan habka production based GDP baa loo yaqaanayo wax soo saarka lagu saleeyaa midna waa expenditure approach oo hadda qaabka hadda aan isticmaalna oo expenditureska mataqaana wadanka ayaa la isku dardaraa waa standard macroeconomic formula iyadoo leeyahay mataqaana consumption plus investment maxay to plus government expenditure iyo net exports oo ah maxay to exports minus imports marka qaabkaas hadda wax ku qiyaasna laakiin waxaan u soconaa wax loo yaqaano national accounts approach oo maxaa weeye in GDP-da aan qaybta wax soo saarka ku qiyaasno marka wax soo saarka marka waxa weeyaan xogta wax soo saarka waxaan ka helaynaa marka ganacsiga hadaltan aan kula hadlay marka waxaa socda sahanka maxay to businesska macnaha tirakoobku wuxuu ahaa madax tiris laakiin sahankuna waxa weeyaan sambal baa wax laga qaadanayaa ganacsiyada marka ilaa 10,000 oo ganacsiyo waxa laga qaadanayaa sambal oo matali kara ganacsiyada kale ganacsiyada marka isugu jiro ganacsiyo waaweyn kuwa yar kuwa meel dhaxaad ah ujeedkana waxa weeyaan marka in xog dheeri ah oo tirakoobki ka badan laga soo aruursho xogtaas marka waxa ka soo bixi doona tusayaal ama indicatorska marka waxay naga caawin doonaan hay'ad ahaan inaanu GDP-da soo saarno qaybta wax soo saarka GDP by production average loo yaqaano marka adduunka inta badan GDP by expenditure average iyo GDP by production average labadaba waa la soo saaraa waa la isbarbar dhigaa inay isku dhawaadaan waay marka anaga waxaan rabnaa inaan dhankaas u wareegno ribooriyada aan soo saari doono sanadlaha ah oo GDP-dan inaan ka soo yareyno ka dhigno quarterly GDP afartii biloodba ama saddexdii biloodba inaan mar soo saarno GDP soo saarno waa maaragtay dadaal iyo howl aad muhiim u ah waqti iyo dhaqaale badan u baahan waxaan rabaa inaan ugu dambeyn ku weydiiyo dhaqanka isticmaalka xogta sidee kor loogu qaadi karaa yacni waxaasoo xoogay oo dadaalo ah waxay u baahan yihiin in dee lagu saleeyo go-aano dowladeed abteyga ama isticmaalka xogaha waa waxa oo nuxurka u yeelaya xogihii lasoo ururiyey marka sidee sar loogu qaadi karaa in la isticmaalo xogaha noocaas oo kale waxaa runtii sar loogu qaadi karaa inaan wacyigelin sameyno hay-adeenu wacyigelinta ay aada ugu dadaasho xogaha aan soo saari doonana in bulshada Soomaaliya loogu gudbiyo qaabab mataqaanaa sawir leh oo infographics leh aan ku muujino waxaa runtii waayahan badanayay ardayda Soomaalida oo xogteena soo codsanaysa cilmi baaris sameynaya kuwa jooga gudaha iyo kuwa dibadda jooga waagi hore waa dareemaysaa markii cilmi baaris la sameynayo xog Soomaaliya ku saabsan ma leh baa lagu tagi jiray maanta marka waxa la helayaa xog tir badan baa la helayaa sahano badan la helayaa marka waxaa kor had u soo kacaysaba cilmi baarista laga qoray ama paperska laga alifay xogta hay'adda runtii way badanaysaa waxaa noo qorshaysan inaan jaamacadaha Soomaaliya ka jira kuwooda muhiimka ah inaan kala shaqeyno si mataqaana wadajir ah in hay'adda xogteeda iyaguna isticmaalaan annaguna aanu barno ardadeeda iyo dadka mataqaana inaan ka wada shaqeyno inaan xog soo wada saarno marka qorshayaasha waxaa noogu jiro kala socdaan kale jaamacad iyo hay'adda statistics in report wada qoraan jaamacaddana macallimiin bay leedahay khubaro ah hay'aduna rag kale oo dheetada yaqaano waxaa jooga aqoon-yahano waa laga wada shaqeynayaa waa wada lahaanaynaa taa marka waxay keenaysaa in arday badan macallimiin badan iyo hay-adduba ay ka wada shaqeeyaan in aanu abteega iyo dheetada in la ismaca kor loo qaado marka waxaa kaloo jira dad cilmi baarayaala oo xogteena isticmaala meelo kala duwan jooga oo maaragtay adduunka ilaahay ku kala daadsan aniga hadda kula hadlayo PhD-deeda one of my chapters anoo aan hay'adda ka mataqaana agaasimo guud ka ahayn ayaan
ka keenay hay-adda ayaan ka isticmaalay sidaas si lamid ah waxaan aqaanaa khubaro badan oo aqoon-yahana oo cilmi baarayaal oo cilmi baarista ay qoreen hay-adda ka keenay sidoo kale hay-ado kale waxaa jira dowladeed oo ay ka mid tahay golaha dhaqaalaha qaranka oo runtii shaqada ugu badan ay qabtaanba ay tahay inay soo saaraan ribooryo ku saabsan arrimaha dhaqan dhaqaale ee Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha mataqaanaa la wadaaga bulshada Soomaaliya la wadaaga inta badan xogta isticmaalaan oo xogta hay-adda weeyaan sidaas lamida wasaaradda qorsheynta xogta isticmaasho oo xogta hay-adda weeyaan marka waxaanu rabnaa inaan kor u qaadno wacyigelinta oo aanu yeelno arrimaha dadka kala aqoon-yahanada civil society-ga bahweynta beesha caalamka jaamacadaha dowladda dhexdeeda marka xoogaa laftigeeda inaan kor u qaadno inaan xogta isticmaalo waxaa kaloo jirta sahano keliya xog laguma helo xogta waxaa lagu helaa xataa dowladda xogteeda wasaaradda waxbarashada xog ay haysaa waxbarashada ku saabsan caafimaadka sidoo kale mataqaana wasaaradda immigrationka oo kale duulistii hawada xogag tiro badan waxaa haya dowladdii xogtii dowladda oo la isku keenay oo mataqaanaa la habeeyey oo anagu aanu isku dubridnay baa iyada lafteeda waxay noqon kartaa xog sugan ee dowladeed xataa noqonaysaa xog waxay leedahay tixraac sanado badan ah marka waxa la ogaan karaa oo kale maxaa iska bedelay dadka Soomaaliya ka dhoofa kuwa soo gala maxaa iska bedelay waxbarashada ardada iskuulka bilaaba kuwa baasa kuwa dhaca caafimaadka xarumaha caafimaadka inta ku dhalata hooyooyinka laga mataqaanaa ku dhalay ku guriyaha ku dhalay xog badan baa dowladdan ku dhex qarsoon xogta laftigeeda hay-addu dadaal weyn bay ka samaysay hay-adaha dowladdan waa kala shaqeynaa xogaha noocaasna waa helnaa waa aruurinaa ma idin nidaamsan tahay in hay-adaha kala duwan ee dowladda xogaha ay hayaan ee adinka idinku soo wareejiyaan ama aad access u leedihiin si aad waxna uga soo saartaan una maaragtay isticmaali kartaan howlihiina kale waa shaqo badan aan ka qabanay wada shaqana way socotaa hadda waxa weeyaan markaan ka hadlayay sustainable development goals inta badan indicatorska 92 ah aan hayno waa wax laga keenay sahanada iyo in badan oo kamid ah xogta dowladda waxaa jirta marka software aan u sameynay oo hadda mataqaanaa diyaar ah oo hay-ad walba dowladeed aanu siinayno username xogta aan ku wadaagayno ribooryo dhowr aan soo saarnay oo kamid ah kii governance-ga oo ka hadlayay cadaaladda iyo mataqaanaa justice-ka iyo ka hadlayay waa xog dowladeed waa mid crime kamid ah crime statistics waa xog dowladeed migration report baan soo saaray waa ka hesheen hay-ado dowladeed oo idin soo gudbiyeen marka dadaalo dheer baan sii wadi doonaa ilaa aan xogtaas ka dhigno mid sugan oo aanba loo baahnaynba in sahan loo aaday ay tahay xog laga mateli karo Soomaalida mataqaanaa Soomaaliya mateli karta keliyana ogow hadda xogta maana ka helinin maxay too dowladda federaalka ayo beeskeedu xamar yahay laakiin dowlad goboleedyada xataa xiriir fiican baa naga dhexeeya oo xogta nagula sheergareeyaan waxaan mataqaanaa runtii ku faanaa aan oran karo wanaag iyo aan ugu hambalyeynayaa fahamka dowlad goboleedyada kala duwan ee Soomaaliya ee si wanaagsan oo la shaqeeyaan xogtana aan loo siyaasadeen runtii sahanada hadda aan qabanay dhan Soomaaliya ka qabanay micnaheedu waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed marka xogta aan ka soo aruurino waa mid geeyigo dhan matasha aad iyo aad maasan tahay Dr. Cabdisalaan falanqeyntaas iyo xogahaas iyo macluumaadkaas aadka muhiimku ah oo aan maaragtay uga sheekaysanay xalqadan Maamul-wanaag podcast waxaa soo saara Somali Public Agenda podcastigan iyo podcastyadana kale waxaad ka heli kartaan website-keena somalipublicagenda.org iyo platformyada kala duwan ee aan ku faafino podcastiyada sida baraha bulshada iyo Spotify, Apple Podcasts tan iyo kulanti dambe. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.